Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay magacaygu waa Yaasmin waxaan ahay 20 jir waxaan ku noolahay qol ay arday ila degan yihiin qolkan waxaan ku doortay si aan jaamacad u tago waqti hore laakiin wixii aan qolkaas ku arkay waxay ahaayeen wax cabsi leh waxaana ku qasbanaaday inaan ka guuro guriga ardayda waana sababta iga dhigday inaan ka guuro gurigan sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashadayda ila socda asxaabay si aad u maqashaan sheeko cabsi leh oo igu dhacday aniga waxayna ku bilaabanaysaa sidan markii aan deganaa dabaqa saddexaad waxaan lahaa saaxiibo ku nool dabaqa afraad marar badan ayaana booqan jiray si aan ula sheekaysto markaan firaaqada ahay maalin maalmaha ka mid ah anigoo la jooga ayaa saaxiibtay igu tiri maxaad ka leedahay haddii aan samaysano cabitaan qabow maxaa yeelay habeenkii waa kuleyl ogowna biri waa fasax jaamacaddu aniguna waxaan doonayaa inaan habeen dambe wada joogno si aan wada sheekaysano laakiin waad ogtahay inay mamnuuc tahay in dab laga shido gudaha hoteelka waxba ma dhici doonaan waxaynu haynaa qorshe waana ku guuleysan doonaa isdeji dabku wuu faafi karaa wax walbana wuu gubi karaa musiibo ayuuna sababi karaa waxba ma dhici doonaan iyo niyadda khayr u sheeg ugu dambeyn aniga iyo dhowr gabdhood ayaa isugu nimid qolkii ay deganaayeen saaxiibaday dabaqa afraad waxaana isugu nimid si aan wada sheekaysano markii hore wax walba waxay u socdeen si fiican waana wada ciyaarinay qofkii laga badiyana waxaa lagu ganaaxayay inuu qoslo anaguna dhammaanteen waan ku wada qoslaynay kadibna saaxiibaday waxay shiday dabkii waxayna bilowday diyaarinta cabitaanada aniguna si aad ah ayaan baqayay mana garanayo sababta dhowr daqiiqo kadib xaawo ayaa si lama filaan ugu dhacday dabkii ayaana wuxuu qabsaday gees ka mid ah diraceedii kadibna xaawo ayaa waxay ku dhex oroday qolka dhexdiisa iyadoo qaylinaysa kadibna waxay u baxday qolalka hoteelka hortooda iyadoo weli qaylinaysa dadka dabaqa deganaa oo dhan ayaana isku soo baxay waxayna isugu yimaadeen goobtii ay xaawo joogday waxaana isku daynay inaan dusha ka saarno bastayaal culus si aan u damino dabka laakiin orodkeedii ayaa sababay inuu isku daygu fashilmo maamulihii iyo dhammaan mas-uuliyiinta hoteelka ayaana yimid waxayna ku guuleysteen inay damiyaan dabkii qabsaday xaawo laakiin markii ay damiyeen waa mar uu jirkii xaawo badankii u gubtay muuqaalka xaawo ayaana wuxuu ahaa mid naxdin leh dhammaanteen waan wada argagaxnay markaan aragnay iyada si degdeg ah ayuuna maamulka hoteelka ugu qaaday isbitaalka si loo daaweeyo oo xaaladeeda loola tacaalo 2 maalmood kadib xaawo weli isbitaalka ayay ku jirtay laakiin intii ku jirtay isbitaalka waxaan bilaabay inaan habeenkii arko riyooyin cabsi ah waxaas oo dhanna waxay ahaayeen sababo la xiriira saaxiibtay wejigeeda oo ahaa mid naxdin leh maalintii saddexaad waxaan arkay xaawo saaxiibteed u dhow oo si xun u ooynaysa waxaana weydiiyey sababta ay la ooynayso maxaa kugu dhacay oo aad la oonaysaa xaawo waxay neefteedii ugu dambeysay ku neefsatay isbitaalka maantana way dhimatay kadibna aad ayaan u murugooday geerideeda maalmo kadib waxaan bilaabay inaan iloobo wejigeeda cabsida ahaa riyooyinkii argagaxa lahaa ayaana waxay bilaabeen inay si tartiib ah u yaraadaan laakiin isbuuc kadib anigoo sugaya saaxiibtay oo kasoo degaysa dabaqa afraad si aan jaamacadda u aadno markii ay timaaday waxaan arkay wejigeeda oo midabkiisu caddaaday faraheediina ay gariirayaan maxaa kugu dhacay oo aad la gariiraysaa waxay eegtay meeshii xaawo dabka ku qabsaday ee ay ku carcaraysay kadibna aniga ayay eegtay waxayna igu tiraahday waxba iguma dhicin ee aan tagno kadibna waxaan sii aadnay dhanka jaamacadda ma ku riyoota riyooyinkan cabsida ah ee aan habeen kasta ku riyooda anigu waan ku riyoodaa 3 habeen ee lasoo dhaafay markii ay xaawo gubatay waxaan maqlay qaylo aad u argagax badan kadibna waxaan maqlaa talaabooyin si degdeg ah ugu ordiyay albaabka qolkeena hortiisa waxaana la socday qaylo naxdin leh markaan furo albaabka qolkana talaabooyinku way istaagayaan waxna lama maqlo arrinkana wuxuu noqday wax iska soo noqnoqday habeen walba mana aha aniga oo keliya laakiin dhammaanteen waan wada maqalnaa habeenkii kadibna waxaan eegay saaxiibtay oo yidhi waxay u muuqataa in aad ula qabsateen inay xaawo idinla joogto aad ayaan u jeclaydeen ayada dhegeysto arrinka kuma saabsana inta aan jeclayn xaawo ama la qabsigeeda hadalkaygana ma aha wax mala awaal ah waxaana kugu sheegayaa inaan habeen walba aragno riyooyinkan ma rumaysan hadalkeeda hal erayna maxaa yeelay ma aanan aaminin hadalkeeda weligay sababtoo ah iyadu waa midda ugu beenta badan asxaabteeda mana rumaystay warka ay ii sheegdo intii ay hadlaysana waan dhageystay oo kaliya laakiin waa aamusay si aan u dhageysto hadalkeeda waxayna u muuqatay mid aad u daalan maskax ahaan jacaylka ay u qabtay xaawo ayaana wuxuu la wareegay fikirkeeda aniguna waxaan iska dhintiray hadalkeeda aniga u dhaqmay si caadi ah laakiin habeenada ka mid ah oo ay saacadu tahay habeen barkii ayaa hurdada ka toosay waxaana ku toosay albaabkayga oo si xoogan loo garaacayo yaa garaacaya saaxiibteedii beenta badneed ayaa iyadoo neefta ku dhageyso igu tiraahday fadlan waa ku bararayaa si degdeg ah iga fur markii aan furo albaabka waxaan arkay saaxiibadeydii beenta badneyd oo si toos ah igu soo ordaysa aniga kadibna anigu waxaan xiray albaabka
waxaan seexanayaa halkan. Ma seexan karo keligee dabaqa afraad. Sabab ayaad u seexan weysay? Sababtoo ah sawirka Xaawo ayaa ku dhagan albaabka qolka isagoo gubanaya. Muuqaalkiisuna wuxuu ahaa mid cabsi ah. Beenna kuma sheegayo, aniga ayaa soo arkay. Isagu waxay u muuqataa in qof uu sameynayo waxyaalahan si uu adiga ku cabsi geliyo. Fadlan dhegeyso Yaasmiin, sawirkan wuxuu ku dhagan yahay albaabka, man aha mid lagu sawiray. Aniguna waxaan soo xasuustay inaan sawirka lagu dhajin, maxaa yeelay maalmihii hore ee aan booqan jiray Xaawo, albaabkeeda kama uusan dhaganeen wax sawir ah. Markaas ayaan fahmay in mid ka mid ah dadka nacasyada ah uu cabsi gelinayo saaxiibtay, waana qof wax ka ogaaday dhacdada meesha ka dhacday, haddana sameynaya waxyaabo lagu cabsi geliyo gabdhaha degan qolkaas, wuxuuna doonayaa inuu ku ciyaaro gabdhaha. Subaxdii markii aan hurdada ka toosnay, waxaan soo aadnay dabaqa afraad. Waxaan u sheegnay maamulaha hoteelka in sawir cabsi leh lagu dhajiyay albaabka qolka, kadibna wayna soo raacday si ay u aragto waxa dhacay. Aniguna markii aan eegay albaabka, dhab ahaantii wuxuu ahaa mid naxdin leh oo faahfaahin badan leh. Waxaana ku sigtay inuu shaki galo. Waxaan bedelaynaa albaabka. Waxaan idin keenayaa farsamayaqaan si uu albaabka idinka bedelo. Farsamayaqaankii ayaana wuxuu saaray albaabkii hore, wuxuuna geliyay mid cusub oo aan wax sawir ah ku oolin. Ma jiraan wax ruuxaan la yiraahdo. Xaawo way dhimatay, wax raad ahna kama tagin. Markii aan hadalka idhi, wajigii saaxiibaday ayaa mar kale isbedelay. Wuxuuna isku bedelay sidii qof laga nuugay dhiigga. Maxaa kugu dhacay? Fadlan aamus, ha sheegin arrimahaas adigoo halkan jooga. Markaas ayaan ogaaday in ay si dhab ah u rumaysatay arrinka ruuxaanta ku saabsan. Kadibna garbaha ayaan ka taabtay, waxaana ku idhi, hadda waxaan u socdaa qolkayga, shaqo badan ayaana i sugaysa. Haddii aad wax u baahato, waxaan kugu sugayaa qolkayga. Haddana macsalaamo. Markii aan damcay inaan tago, ayay qabatay gacanta, waxayna i tiri, fadlan ila joog maanta. Dhammaan asxaabtayda qolka ila deganaa way tageen, aniguna keligay halkan ma joogi karo. Waan u dhoola cadeeyay, waxaana ku idhi, haye maanta waan kula joogayaa.